xaaladan caga badan ku taaganeen ayaa laga soo sheegaya deegaanka masaajid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas waxa wali ku hardamaya ciidamada dawladda iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kale ciidamada dawladda ayaa waxa ay kaashanayaan dadka deegaanka iyadoo dhowr jeerna deegaankaasi dagaal uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya halkaas ku sugan iyo waliba xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo dhinaca ka jooga deegaankaasi wararka qaar ayaa sheegaya in labadaasi dhinacba ay joogaan banaanka magaalada sidoo kale diyaaradaha droniska ee Turkiga ayaa dhankooda maalintii labaad waxay ka wadaan duqeyn ay la beegsanayaan fariisimaha Al-Shabaab ee ku leeyihiin deegaanka masaajid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in duqeymahaasi ay diyaaradaha ay fulinayaan ay beegsanayaan godad waaweyn oo la sheegay in Al-Shabaab ay qoteen si ay uga dhigtaan dhufays war ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa asna waxa uu sheegayaa in deegaankaasi masaajid Cali Gaduud lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab isugu jira dhalinyaro iyo waliba odayaal da' wasiir ku-xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Al-Cadaala ayaana sheegay in dagaal halkaasi ka dhacay ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanka ee masaajid Cali Gaduud ee halkaasi ku dileen xubno dhowr ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaankaasi dhinaca kalena xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo waliba wasiiro ka tirsan xukuumadda maamulka Hirshabelle ayaa waxay gaareen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wafdiga ayaa la sheegay in ujeedka halkaas u tageen ay tahay inay u kuurgalaan amniga degmadaasi iyo deegaanada ku dhowdhow wafdiga waxaa qayb ka ahaa xildhibaan Cabdullaahi Buraale iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Ganey wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabelle taliyaha ciidanka dhulka Maxamed Tahliil Biixi iyo sidoo kale taliyaha qaybta 27aad wafdigaasi ayaan wararka qaar waxay sheegayaan inta ay ku sugan yihiin degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan in halkaas ay uga qayb gali doonaan shirweyne ka dhacaya Maxaas guud ahaan waa naga inta wararkii ugu waaweynaa ee maanta